أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال ولالكن أنا ابن الحسن وحتى سودواتين كانال كان مخال برودكشن إن شاء الله ما برامجكنا ديالنا حاروينا مكلو داغو كورس فريا أما بلاشة أدكو برانيسيد ويب ديفلوبمنت أيضا الاستعمال أيو CSS يوسيدو كله HTML وقورين انت نقود قلن برامجكنا حين كاعد سنينا كانال كان مخال برودكشن أدي أدكو عصبتاي فضلا سبسكرايب سار فيديو غن لايك سارة بل اسكو دايا مخال كان إناد جارسيسين شنبقلو لايكا waan idinkaga mahadcelinayaa runtii aad u mahadsantiin dhamaantiina marka si aan kula wadaago koorskan bilaashka aad ku baranaysid web development ayadoo la isticmaalayo CSS iyo sidoo kale HTML waxaad soo furtaa marka browserkaada ayaad soo furan doontaa waxaad soo booqataa marka website-kan lagu magacaabo one month linkiis waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose videoga description-ka haddii aadan description-ka aadan aqoon comment ugu horeeyaan kuu biin garan doonaa website-kan lagu magacaabo one month waxyaabaha uu qabto waxa waaye koorsooyin ayuu iibiyaa koorsooyinka duration-ka uu soconayana waxa waaye hal bilood waa sida website-ka magaciisa ay ka muuqataba koorsooyinka uu bixiyo website-kan waxaa ka mid ah programming ayaa ka mid ah sidoo kale business course ayuu bixiyaa almost marka anaga hadda waxaan u baahanahay web development khaas ahaan ayadoo la isticmaalayo HTML iyo sidoo kale CSS haddii ay tahay markii kugu horeysa aad maqashid HTML iyo sidoo kale CSS insha Allah koorskan haddii aad la socotid markii ugu horeysay ayaad waxaad samayn doontaa coding ayaad samayn doontaa almost marka si aad u aragtid koorskan free-ga qaybta hoose aad u soo soconaysaa website-kan marka soo booqatid marka qaybta hoose markaad u soo degtid waxaad arki doontaa course ay ku qoran tahay learn to code for free 7 days how to make your own website HTML and CSS website for free marka koorskan waa free wuxuu soconayaa duration-keeda 7 maalmood marka koorskan aniga ayaa iska register gareeyay saaxiibayaal haddii aad hal aad ula socotid waad samayn doontaa website-kaada ugu horeeyo aniga ayaa ka hubo almost marka haddii ay tahay markii kugu horeysay HTML iyo sidoo kale CSS aad maqashid waxaad u baahan tahay marka information inaad ka fahantid CSS-ka iyo sidoo kale HTML-ka wuxuu yahay intaadan koorskan sign up aadan ku sameynin almost marka waxaad imaataa marka website-kan lagu magacaabo tutorial points 10kii hadda aynu soo dhaafnay website-kan aan ka diyaariyay qaybta waxaad imaataa marka library-ga ayaad imaan doontaa marka muhiimadda aan u imaanayno tutorial points-kan waxay tahay inaynu fahanno CSS muxuu yahay sidoo kale HTML muxuu yahay waxaynu ka raadin doonaa buugaag laga diyaariyay oo free ah aynu ka raadin doonaa marka qaybtan waxaad imaanaysaa tutorial points-ka marka soo booqatid qaybtan web development-ga ayaad imaan doontaa meeshan waxaad ka raadisaa marka buugaag oo CSS iyo sidoo kale HTML ayaad ka raadin doontaa marka hadda meeshan markaad fiirisin waxaa ku qoran len CSS ayaa ku qoran waa book free aad ku baranaysid oo basic-ga CSS-ka wuxuu yahay sidoo kale qaybta hoose markaad u soo degtid meeshan waxaynu ku haysanaa len HTML sidoo kale HTML5 hadda waxaynu ku jirnaa HTML5 ayaynu ku jirnaa tusaaleyn HTML5 markaan ku dhufto waad soo baranaysaa HTML-ka wuxuu yahay ayaad soo baranaysaa intaadan iska soo diiwaangelin course-ka 7 days-kan intaadan iska soo diiwaangelin tutorial points-kan imow qaybta web development-ga imow CSS-ka wax ka soo fahan HTML-kana wax ka soo fahan marka si fiican aad u soo wada fahantid CSS-ka wuxuu yahay HTML-ka wuxuu yahay kadib course-ka waad iska diiwaangelin doontaa insha Allah aniga ayaa ka hubo waa markii ugu horeysay aad samayn doontid haday tahay CSS iyo sidoo kale HTML ama maqashid coding-kaad ugu horeey adigoo dhisay website aad samayn doontaa marka sidoo kale asigana waxaad soo booqan kartaa website lagu magacaabo W3 School waxaad ka baran kartaa casharo ku saabsan web development aad ka baran kartaa anaga hadda waxaan u baahanahay CSS iyo sidoo kale HTML marka waxaad soo furtaa marka qaybtan tutorials-ka aad soo furi doontaa meeshan waxaad ka doorataa marka HTML iyo sidoo kale CSS HTML hadda markaynu doorano asigana waxaad ka fahmi doontaa insha Allah full information aad ka fahmi doontaa W3 School-kan HTML iyo sidoo kale CSS marka soo dooratid HTML-ka qaybtan waxaad ku dhufataa marka start learning HTML ayaad ku dhufan doontaa wad ujeedinayaan filay introduction HTML-ka muxuu yahay hypertext mockup language waad baran doontaa meeshan waxaad ku haysataa marka structure-ka HTML-ka uu ka bilaabanayo ayaad ku haysataa try yourself haddii aad ku dhufatid waxaa waaye qayb waxaa kuusoo furmi doonto code editor ay kuusoo furmi doonto muhiimaddu waxay tahay inaad hal aad u fahantid HTML-ka waxyaaba ugu hore uu ka bilaabanayo HTML-ka document type-ka oo kale waxyaaba uu ka bilaabanayo muxuu yahay sidoo kale waxyaabahan oo idil waad baran doontaa waxay yihiin marka HTML iyo sidoo kale CSS-ka markaad information badan aad ka soo fahantid waxaad u soo laabataa website-ka one month
marka qaybtan waxaad ka doorataa marka ay ku qoran tahay learn more ayaad ka dooran doontaa. marka course-ka free-ga markaa soo dooratid sidoo kale qaybtan waxaad ku haysataa marka waxyaabaha course-kan lagu baran doono oo muuqaal ayaad ku haysataa. marka waad daawan kartaa asigana waxyaabaha aad ku baran lahayd 7 maalin oo coding-ka HTML iyo sidoo kale CSS-ka iyo website-kii practice ahaan aad u dhisi lahayd oo macalinka uu ku tusaayo. marka waxaad usoo laabataa qaybta sare aad usoo laaban doontaa, waxaad ka doorataa marka qaybtan ay ku qoran tahay take this course for free aad ka dooran doontaa. marka website-ka wuxuu ku weydiin doonaa inaad account ka samaysatid. marka account ka samayso si aad ula socotid course-ka. qaybtan kadib waxaad ku dhufan doontaa sign up ayaad ku dhufan doontaa. almost ani hadda waxaan ka leeyahay account ayaan ka leeyahay, waxaan dooranayaa marka sign in ayaan dooranayaa. marka qaybta gudaha markaad usoo gashid course-ka wuxuu ka kooban yahay 7 maalin ayuu ardayga baranayaa HTML sidoo kale CSS asigoo ku dhisaya website-kiisa ugu horeeya oo portfolio ah. casharka ugu horeeya oo kale waa introduction, sidoo kale casharka labaad oo kale code editor-kan qaabka loola soo degay ayuu ku tusayaa. sidaan ay u soconayaan casharada. marka bal aan ku dhufto casharkan labaad installation-ka qaabka loogu sameynayo code editor-kan. waad u jeedinayaan filaya saaxiibayaal casharada sidaan ayaad u daawanaysaa. casharadana waa practice, waad u jeedinayaan filaya macalinkana waa midkan aad u jeedin Chris ayaa lagu magacaabaa. almost casharadiisa qaar ka mid ah ayaan hore usoo daawaday. marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad ka wada faa'iidaysan doontiin course-kan uu soconaya 7 maalin oo web development ah, qaas ahaan HTML iyo sidoo kale CSS-ka. waxaan ka hubaa haddii aad la socotid casharadan bilow ilaa dhammaad inaad dhisi doontid website-kaaga ugu hore oo portfolio ah. marka casharada next ayaad ku dhufan kartaa ama sidoo kale qaybta gadaale haddii aad u laabatidna sectionska waad dooran kartaa midkaad u baahan tahay. marka sidoo kale waxaan kugu talin lahaa qaabkay u jadwalaysan yahay casharada inaad u daawatid dhammaantood hal maalin ha ku wada daawanin. waxay u jadwalaysan yihiin ardayga maalinta ugu hore oo kale 2 cashar inuu qaato, maalinta labaad oo kale sidaas oo kale. marka jadwalka raac insha Allah. marka insha Allah saaxiibayaal waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad ka wada faa'iidaysan doontiin course-kan. haddii aad jeceshahay inaad baratid web development-ga ka faa'iidayso course-kan HTML iyo sidoo kale CSS-ka. insha Allah muuqaalkan maanta intaan ayaan kusoo gabagabeyn doonaa. walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.